بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي الداوديال meel walba waa joogtaan iyo si walba muuqaalkaygu idin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa barta in YouTube-ka ku leenahay run sheeg saaxiibayaal daawadayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa kamid ah ciidamada BSF oo fariin u diray shirkadaha diyaaradaha iyo cabsi dagaal oo ka jirta magaalada Boosaaso xilli Axmed Karaash oo qaaday tilaabo dhibaato ku noqotay hogaamiyaha Puntland Said Abdullaahi Deni niso howlgal culus ka fulisay laba degmo oo kamid ah Muqdisho iyo madaxweynaha Galmudug oo baaq degdeg ah u diray hay'adaha caalamiga ah qodobadaas iyo kuwa kale ayaan saaxiibayaal idin soo gudbin doonaa hadduu Rabbi raali ka noqdo fadlan haddii aad nagu cusubtiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa in channelka subscribe noo saadaan like na wili regilisaan gamarelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idan kale saaxiibayaal daawadayaal sida hordhaca warkayga baad ku daawateen haddaynu ku bilowno ciidamada PSF ayaa fariin u diray shirkadaha diyaaradaha sidoo kale waxay cabsi dagaal ay ka jirtaa guud ahaan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari iyadoo saacad walba la fili karo in markaas dagaal kale uu ka dhex qarxo labada ciidan waa BMBF iyo sidoo kale BSF ammaanka garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ayaa si weyn loo adkeeyay kadib markii shalay oo halkaasi ka dhacay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac war ka soo baxay wasaaradda duulista hawada ayaa lagu sheegay in si caadi ah ay u socdaan shaqooyinkii garoonka amniguna yahay mid markaas la isku haleyn karo ila madax banaan ayaa saaxiibayaal waxay inoo sheegeen in hay'adda BSF ay ku wargelisay qaar kamid ah madaxda shirkadaha duulimaadyada iyo hay'adaha duulista rayidka Soomaaliya in xiisad colaadeed ay weli ka jirto garoonka isla markaana aan la isku haleyn karin ammaanka garoonka oo markasta dagaal ka qarxi karo iyagoo aysan mas'uuliyadooda aysan qaadeen markaasi in ka badan 15 qof ayaa ku dhintay dagaalkii shalay waxaana la soo warinayaa in weli ay jirto xiisad isla markaana bariyo Arbaca la sugayo madaxweynaha Puntland Said Abdullaahi Deni inuu dalka dib ugu soo laabto maadaama uu ku maqnaa imaaraadka dhinaca kale saaxiibayaal Axmed Karaash ayaa qaaday tilaabo looga jawaab celinayo diyaaradii markaas xildhibaan Saacadiya sidee markaas laga celiyay garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kaasoo saldhig u ahaa markaasi dagaalka halkaasi ka dhacay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash ayaa shaqo joojin ku sameeyay laba wasiir oo kamid ah xukuumadda kadib dhacdadii shalay dib looga celiyay diyaaradii ay la socotay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka labada wasiir ee uu shaqo joojinta ku sameeyay Karaash ayaa kala wasiirka duulista hawada iyo garoomada Puntland Xuseen Ismaan iyo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland Axmed Yaasiin Saalax waxa waajibaadkooda shaqo labadaasi wasaaradood si kumeel gaar ah u sii wadi doona wasiir ku-xigeenka wasaaradahaasi ayaa lagu yiri warqad shaqo joojin ah ee uu soo saaray Karaash madaxweyne ku-xigeenka ayaa ku sababeeyay shaqo joojinta labada wasiir baalmarida iyo fulin la'aanta waajibaadka dastuuriga iyo habsami la'aanta mas'uuliyadeed ee fulinta shaqada shalay ayay ahayd markii laga soo celiyay garoonka magaalada Boosaaso diyaarada ay la socotay kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ana gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Saacadiya Yaasiin Xaaji Samatar sida ay noo xaqiijiyeen in la wareediyo lagu kalsoonaan karo sida uu ogaaday run sheeg amar ka soo baxay madaxda sare ee Puntland ayaa lagu celiyay diyaaradaas oo markii hore ka soo baxday garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho sidoo kale la wareediyo aan la hubin ayaa inoo sheegay in duuliyaha uu dalbaday in uu shidaal ku shubto diyaaradda waxaana markaasi kadib loo ogolaaday in ay ku degto garoonka balse aysan dejin wax rakaab ah iyo sidoo kale markaasi ay ku noqoto garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ay markii hore ka soo kicitintay wararka kale ayaa intaasi ku darayeen Saacadiya Xaaji oo ah markaasi gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ay socdaalkeeda ku wargelisay maamulka Puntland arintan ayaa saaxiibayaal waxa sidoo kale ka dhalatay shaqaaqa xoogan waxaana lagu soo waramayaa inuu iskoorimaadkaasi ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso kaasoo u dhaxeeyay ciidamada Puntland markaasi kuwa markaasi doonayay in ay soo gelmiyaan marwada markaasi gudaha magaalada markaasi Boosaaso iyo kuwa markaasi diidanaa oo fulinaya amarka Said Abdullaahi Deni oo ahaa in marwadu aysan ka soo degin garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari qodobada kale aan saaxiibayaal idin haynana waxaa kamid ah Nisa ayaa howlgal culus ka fulisay laba degmo oo kamid ah Muqdisho faahfaahin dheeraad ayaa waxaa ka soo baxaya howlgal qorsheysan oo xalay ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ay ka sameeyeen qaar kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir kuwa ujeedkoodu ahaa
in amniga lagu xaqiijiyo. howlgalladan ayaa si gaar ah looga sameeyay degmooyinka Hilwaa iyo Kaxda ee gobolka Banaadir waxaana lagu soo qabtay dad u badan dhalinyaro oo lagu eedeynayo amni darrada inay qayb ka yihiin. war ka soo baxay hay-adda Nisa ayaa waxaa lagu faahfaahiyay howlgalladaasi waxayna hay-addu sheegtay inay heshay xogo amni kadibna uu dhacay howlgalkaasi qorshaysan. ciidamo hubeysan oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa fuliyay qorshaha howlgalka kadib markii ay heleen xogo sugan oo sheegaya inay jirto halis amni oo ku wajahan shacabka taasoo u baahan in laga hortago ayay tiri hay-adda Nisa. sidoo kale waxay hay-addu intaasi ku dartay in wax khasaare ah uusan ka dhalan howlgalka isla markaana uu dhacay sidii loo qorsheeyay. howlgalladan oo qaatay saacada ayaa kusoo dhammaaday sidii loo qorsheeyay iyadoo uusan dhicin khasaare ka dhashay ayaa mar kale lagu yiri qoraalka hay-adda Nisa. ugu dambeyn hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa ugu baaqday shacabka Soomaaliyeed inay si dhow la shaqeeyaan ciidamada ammaanka ayna la soo wadaagaan xogta ay hayaan. howlgalladan ayaa qayb ka ah dhaqdhaqaaqyada ciidan ay dowladdu ka wado gudaha magaalada Muqdisho kuwa lagula dagaalamaya burcadda hubeysan iyo ciyaal weerarada. qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Galmudug ayaa baaq degdeg ah u diray hay'adaha caalamiga. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa sheegay in dadka ku nool degmooyinka iyo deegaanada Galmudug ay isugu darsameen abaar iyo amni darro. waxa uu sheegay in si gaar ah dadka ku nool degmooyinka Wisil iyo Baxdo ay haysta dhibaatooyin ka dhashay abaaraha iyo kuwa ay sababeen weerarada ay degmooyinkaasi ku soo qaadaan ururka Al-Shabaab. isagoo sii hadlayay ayuu madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ugu baaqay hay'adaha caalamiga inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadka ay abaartu saameysay degmooyinka Baxda iyo Wisil iyo deegaanada hoostaga. hadalkan ayaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor waxa uu ka sheegay munaasabad lagu soo dhaweynayay oo loogu qabtay degmada Wisil ee gobolka Mudug taasoo ay qayb ka ahayn mas'uuliyiin kala duwan. waag saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaa warkii aad ka daawanaysay Run Sheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusubtihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad channelka subscribe noo saadhaan like-na nagu dhiirigelisaan gamaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle.